Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Tani waa qaybtii labaad xusuuqii Hitler uu u geystay Yuhuudda. Xusuuqaas oo ahaa mid aad iyo aad u xanuun badan runtii. Qaybtii koowaad waxa aan ku soo aragnay sida uu ku bilaabmay iyo marxaladihii uu soo maray xusuuqaas. Waxaan kaloo ka soo hadalnay habeenkii Yuhuudda badan la dilay. Daawade, si aad qaybtan labaad ula qabsatid, fadlan soo daawo qaybtii koowaad. Waxa aan kuu soo dhigaya halka hoose ee commentiga, halkaa ka daawo. Intaan mowduuceena bilaabin, fadlan muuqaalkan like inoo saar, kuna soo biir kanaalkeena Xog Baahiye adiga oo subscribe taabanaya. Sanadkii 1940kii waxaa la bilaabay qorshe Yuhuud loogu tarxiilayo jasiiradda Madagascar. Laakiin dagaalkii Faransiiska oo socday awgeed waa uu guuleysan waayay qorshahaas. Sida Yuhuudda loo xasuuqay waxa aad ka garan kartaa intii Yuhuud badan saf dheer la geliyo iyada oo la kala dambaysiinayo. Kadib rasaas ayaa lagu dhufan jiray dadkaas leynka ku jira si loo ogaado tayada rasaasta ay Jarmalka soo saarto, bal inay dad badan ka dhex bixi karto iyo in kale. Micnihii tijaabo ahaan ayaa Yuhuudda loo leyn jiray. Waxaa kaloo jirtay intii 1000 Yuhuudi meel lagu xiro, kadib waxaa lagu tuuri jiray bamba-gacmeed, sababtoo ah si loo ogaado bamba-gacmeedkaas bal inay dad badan ku dhiman karaan iyo in kale. Weli waxaan ku sii soconnaa qaabkii Yuhuudda loo xasuuqay. Qiyaastii 3000 oo Yuhuudi ayaa lagu xiri jiray qol aad iyo aad u yar, kadibna waxaa lagu furi jiray qiiqa gaariga oo waxyeeleeya maskaxda iyo neefta bini'aadamka. Waxaa la sheegaa in 6 kaam oo waaweyn lagu xasuuqi jiray Yuhuudda, waana kaamamka ay ku dhinteen ku dhowaad 6 milyan oo Yuhuudi, halka dadka kale ay ahaayeen 5 milyan. Micnihii kaamamkaas waxaa ku naf waayay ku dhowaad 11 milyan oo qof. Qaabka loo xasuuqay Yuhuuddu way kala duwanaayeen. Mid ka mid ah taariikhyahanadii Ingiriiska ee xilligan noolaa ayaa waxa uu yiri, Jarmalka Yuhuudda waxa ay u isticmaaleen sidii xayawaanka oo kale. Waxaa lagu tijaabin jiray dawooyinka cusub ee warshadaha Jarmalku soo saaraan. Tababarkii Yuhuudda lagu qaadan jiray waxaa ka mid ahaa xubnaha taranka ragga intii la soo jaro, tan dumarkana la jaro ayaa la isku bedeli jiray. Waana sababta Jarmalka uu waaga adduunka ugu horeeyay dhanka khibradda dhakhtarnimada. Dhakhaatiirta Jarmalka iyaga oo kala saarayay xubnaha halista ah, qofka haddii la jaro uu u dhiman karo iyo kuwa kale. Jarmalku aad ayuu ugu fiicnaa qalliinka xilligaa, isaga oo markasta ay dawo soo baxdo lagu tijaabin jiray Yuhuudda. 3 milyan oo Yuhuudi ayaa waxa ay ku noolaayeen dalka Poland, gaar ahaan kaamkii weynaa ee Auschwitz. Ogsoonow, Poland Adolf Hitler ayaa haystay xilligaa, waxaana halkaa ku sugnaa dhakhtarkii weynaa ee Joseph Mengele. waxa uuna ku samayn jiray Yuhuudda cilmi baaris khatar ku ah bini'aadanimada. Cilmi baarisyadii khatarta ahaa uu samayn jiray waxaa ka mid ahaa: 1. Intii qol lagu xiro kumanaan Yuhuudi ah, kadib ayaa lagu furi jiray oksijiin ka badan inta qofka bini'aadanka u baahan yahay, halka kaarboonkana lagu ciriirin jiray. Maxaabiista halkaa ku nool aad iyo aad ayay u silci jireen. Intaa kadib halkaas ayay ku dhiman jireen. 2. Yuhuudda waxaa lagu xiri jiray qaboojiyaal aad iyo aad u waaweyn inta uu dhiigoodu ka fariisanayo, kadibna halkaas ayay ku dhammaan jireen. Dhakhtarka Joseph Mengele waxa uu isku dayi jiray in uu bedelo kalarka isha, gaar ahaan qaybta loo yaqaano wiilka ee madow. Waxa uu u bedeli jiray huruud. Irbadaas lagu duri jirayna waxa ay ahaayeen kuwo kiimikaal ah. 4. Waxaa dumarka lagu shubi jiray fayras ka mamnuucay in ay wax dhalaan. Kaamamkii 6 ahaa ee waaweynaa oo Yuhuudda lagu xasuuqi jiray waxaa ka mid ahaa Auschwitz 2 oo ku yaalay dalka Poland. Kaamkaas Auschwitz 2 waxaa ku dhex yaalay Kito. Haddaba waa maxay Kito? Kito waa dhul aad iyo aad u weyn, uu 4 dhinac kaga wareegsan yahay silig.
siligaasna waxaa ku xirnaa koronto. Quito waxaa lagu hayay 380,000 oo Yahuudi. Tiradaas mar walba hoos ayay uga dhacaysay, waayo maalinba maalinta xigta kumanaan kun oo Yahuudi ayaa ku dhiman jiray. Quito waa meesha ugu daran ee lagu gumaadi jiray dadyowga Yahuudda. Kaamamka waaweyn ee Yahuudda lagu xasuuqi jiray 6 oo kaliya ma ahayn, waxaa kaloo jiray saldhigyo waaweyn. Saldhigyadaas waxay ku kala yaaleen 17 saldhig Jarmalka ayay ku yaaleen, halka 6 saldhig ay ku yaaleen dalka Poland, 4 saldhig waxa ay ku yaaleen dalka Norway, 2 saldhigna waxa ay ku yaaleen dalka Holland, halka 2 saldhigna ay ku yaaleen dalka Talyaaniga. Halkaas waxaan ku soo aragnay 31 saldhig oo Yahuudda lagu xasuuqi jiray. Dadyow kale ha soo raacaan, laakiin iyagaa ugu badnaa. Muhiimadda uu Adolf Hitler ka lahaana waxay ahayd in Yahuudda la cirib tiro. Intii kaamam iyo saldhigyo waaweyn u samaystay ayuu ku tababaran jiray Yahuudda. 31 saldhig oo kaliya ma ahayn, waxa ay gaarayeen 47 saldhig. Bal daawada sawiro dad nool oo adigoo kale ah. Xanuunkaad dareemaysid oo kale ayay dareemayaan. Ka waran in tijaabooyin lagu qaato jirkaaga. Kam intee silic baad maraysaa? Kam intee xanuun ayaad dareemaysaa? Xasuuqyada Yahuudda loo geysanayo intaa oo kaliya kuma ekayn, kuwo ka daran oo ka xanuun badan ayaa jirtay. Kaamamkaas 6 ahaa waa la sii kordhiyay. Haddaba maxay ahaayeen kaamamka cusub oo loo dhisay si Yahuudda loogu xasuuqo? 2. Dhar noocee ah ayaa Yahuudda loo xiri jiray? 3. Xusuuqyadii ugu darnaa ee Yahuudda loo geystay maxaa ka mid ahaa? 4. Nolol noocee ah ayay ku noolaayeen Yahuuddu? 5. Qaab noocee ah ayay Yahuuddu uga badbaadeen gacanta Adolf Hitler? Mawduucyadaas iyo kuwo kale oo badan ayaan ku arki doonaa xalqadeena dambe insha Allah. Si aad ula socotid kanaalkan subscribe saar, waliba adigoo gambaleelka furanaya. Muuqaalkan aad daawanaysidna like saar. Waa inoo qaybta dambe insha Allah.